waxaa maanta culummada ahlusunna waljamaaca ee kauntiga wajeer eedeymo kala duwan ay markaasi u soo jeediyeen shiicada. waryaheena kauntigaasi wajeer maxamed shaafac canko oo ku sugnaa goobta ay markaasi shirka jaraa'id ay ku qabteen ayaa warbixin ku saabsan arrimahaasi goor dhoweyd inoo soo diray. kulan culummo u diinka ahlusunna waljamaaca ay ku yeesheen hoteelka wajegeestas ayaa waxay kaga hadleen Soomaali Shiica oo diinta islaamka daleeciya sida hadalka u dhigeen. maanta waxaa ka dhacay magaalada wajeer shir aad loo soo agaasimay oo ay soo agaasimeen culummo u diinka ahlusunna waljamaaca. shirkaas oo ku saabsan in dadka muslimiinta ah looga diga in diintooda laga fasahaadiyo lagana marin habaabiyo waddada xaqaheed. khaasaan culummada mu'tamarkan kulankan waxay uga hadleen qolada la yidhaahda rawaafidada ama shiicadu, qoladaas oo ah qolo diinta islaamka aad ugu been abuuratay, saxaabada nabigeenna calayhi salaatu wasalaamna aad u dacniyeen oo u dureen. sida muslimiinta dhammaan ay wala og yihiin qolada shiicada la yidhahda ama raafidadu waa qolo soo jireen oo muddo badan adduunyada ku noolaa, laakiin waxaa waayahan nugu soo batay Soomaali haddaan nahay ay shiicadayna soo dhex galaan oo nugu soo dhex dhuntaan. culummada ayaa ka dhawaajiyey sababta keentay in dadka looga digo shiicada iyo astaamaha lagu garto, iyagoo ku tilmaamay kuwa naclada hogaamiyayaasha saxaabada. shay waliba markii uu yimaado unbaa loo diyaar garoobaa, hadduusan imaanin haddeemaba joogo. marka waxaa imaaday inay nimankii xoogaystaan oo ay waddanka Kenya ku xoogaystaan oo ay mataqaanaa maraakiis samaystaan oo ay haweenkii carruurtii u yeedhaan oo dadkii hanuuniyaan oo iyagoo mataqaanaa tacninayaan saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo muslimka ay wax ka sheegayaan. marka waxaa keentay arrintan iyo shirkan in arrintii mataqaanaa mar haddii ay saxoogaa yeelatay sidii looga hortagi lahaa muslimka looga digo iyo saas ayaa ku soo beegtay shirka maanta ahlusunna waljamaaca ay wajeer ku qabteen. weliba nimankan waa niman aad waxa weeye u isticmaala wax la yidhaahdo taqaya inay isqariyaan. waxaa lagu garanayaa waxaa weeye caayida saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam. waxaa kaloo lagu garanayaa meelaha qaar ayaga hadda ay maaragtay yacni ku awood leeyihiin. waxaa aad loogu garanayaa xataa tawxiidkii shahaadadii inay waxaa weeye meeshii anna muxammadan ahayd anna caliyan inay leeyihiin. waxaa lagu garanayaa inay dhagaxaan yar wataan oo alxamdulilah iyo maaragtay dhulka dhigahayaan ayagoo ictiqaadsan dhulka inuu nijaaso yahay oo dhiig waxaa weeye siid xuseen lagu daadiyey oo nijaaso uu yahay. oo dhagaxaas marka qof kasta oo shiici ah markii aad alxamdulilah aad la tukanayso kaleeto waxaa ku dareemaysaa inuu la soo baxo oo ku sujuudo. waxaa lagu garanaa dacniga saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo taxqiirinta saxaabada nebigeenna calayhi salaatu wasalaam. dhanka kale muslimiinta ayay ugu baaqeen inay ka taxadaraan dadaalada shiicada ay wadaan ay Soomaalida diinta kaga marin habaabinayaan. marka islaamka waxaan ku boorinaynaa idaacadaha dadka naga dhagaysanaya in meel kasta oon joogno aan qoladaas aan ka digtoonaano, aan diinta islaamka ku dhaqanno, ilaahay subxaanahu wa tacaalana aan ka cabsanno. marka waa laga digtoonaanayaa dadka iyaga, waa la iska ilaalinayaa. waxay raadinayaan iyagu waa adduunyadu yaysa idin sirin dadka muslimiinta ahow ka digtoonaada iska jira dadka iyagaana mataqaanaa alxamdulilah iska dafciya. waxaan maaragtay islaamka ugu baaqaynaa meel kasta ay joogaan dadka ayaga in laga digtoonaado. waa fitan islaamkii waxaa weeye gashay, gaar ahaan hadda waddankan Kenya way maaragtay ku faafahayaan. si kastaba ha noqotay shirkani ayaa ka mid noqonaya dadaalada culummada ahlusunna waljamaaca ay ka wadaan dalkani Kenya ee lagu hor istaagayo faafida fikirka shiicada ah.